Kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya. Kooxda TPLF oo markaan xaaladoodu ay noqonayso allow sahal. Dowladda Itoobiya oo hogaamiyo Abiy Ahmed oo garab xoogan ka helaysa dowladda Eritrea. Qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkan dalkan ka baxayo. Markaad nagala socotaan waa Glangal Media. Fadlan haddii aad ku cusub tahay waan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarato muuqaalkana la wadaagto saaxiibada. Dowladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed ayaa u muuqata inay waayihii u dambeeyay ama maalmihii lasoo dhaafay ay guulo waaweyn ka gaaraysay kooxda TPLF oo iskaga baxday guud ahaan deegaanada Amxaarada iyo Canfarta oo ay horey uga qabsatay dowladda Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa hambalyo u diray sidoo kale ciidamada dowladda Itoobiya. Waa maxay sababtu? Dowladda Eritrea kaalin noocee ayay ku leedahay ciidamada ay kusoo daabulayso xadka Tigray? Qodobada ayaad ku daawan doontaan. Haddaba dowladda Itoobiya ayaa waxay ka gaartay guulo waaweyn. TPLF ayaa waxay shalay dagaal ba'an ku soo qaaday gobolka Wollo kadib markii ay kasoo tilaabeen xadka ciidamo infantry ah sida ay sheegtay dowladda Itoobiya. Madaxweynaha Oromada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay sidoo kale in kooxda TPLF ay ku jirto waayihii ugu dambeeyay. Madaxweynaha TPLF ama deegaanka Tigray ayaa sidoo kale sheegay in lagu garaacay duqeyn ba'an oo xagga cirka ah iyo dhulka intaba. Diyaaradaha drone-ka ee Turkigu siiyay dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale hawada ka garaacaya gobolka Tigray. Turkigu wuxuu weli ku soo adkeysanayaa inuu dowladda Itoobiya ka iibi doono hubka kadib markii dowladda Mareykanku ay cunaqabatayn ugu hanjabtay dowladda Turkiga kadib markii la sheegay in diyaaradahaasi ay geysteen duqeyn loo geystay dad rayid ah. Waa maxay sababta dowladda Mareykanku ay arrintan u daba joogto? Waa maxay muuqaalka iyo xadgudubyada lagu eedeynayo dowladda Turkigu inay geysteen diyaaradaha ay ka iibiyeen dowladda Itoobiya? Abiy Ahmed wuxuu markaan u arkaa fursad weyn haddii ay dowladda Turkiga ku sii adkaysato inay taageerayso islamarkaana ay sii wadaydo taageerada ay siinayso xukuumaddiisa. Abiy wuxuu ku adkeysanayaa in duqeymaha xagga cirka ah ay wax weyn ka tarayaan guulaha uu ka gaaray TPLF. Waxaana la soo warinayaa in kooxdu ay markaan si weyn ula daalaa-dhacayso culays xagga hawada ka haysta maadaama aysan kooxdu haysan hub ay iskaga difaacaan diyaaradaha Bayraktar ee Turkigu siiyay dowladda Itoobiya. Turkigu wuxuu si weyn u garab istaagay dowladda Liibiya kadib markii Khalifa Haftar uu isku dayay inuu afgembiyo dowladda sharciga ah ee waddankaasi Liibiya. Turkigu wuxuu u muuqdaa inuu garab weyn siinayo dowladda Abiy Ahmed maadaama kooxda TPLF ay hadda ku jabtay furimaha dagaalka. Waxaa la soo wariyay in duqeymo ba'an ay ilaa ay hadda ka wadaan diyaaradaha Turkiga uu siiyay dowladda Itoobiya. Militariga ayaa la sheegay inay si weyn hawada uga caawinayaan halka dhulkana ay diyaaradahaasi ay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqa TPLF oo haddii ay isku dayaan inay furimaha dagaalka dhaqdhaqaaq ka sameeyaan la garaacayo. Waxaa muuqata in diyaaradaha Turkigu ay hadda difaacanayaan kaalimaha hore ee diyaaradaha ugu casrisan caalamka walow dowladaha reer galbeedku ay ku baraarugeen markii diyaaradahani ay dowladda Turkigu u isticmaashay dagaalkii dhexmaray Azerbaijan iyo waddanka deriska la ah. TPLF ayaa hadda waxay tahay allow xaaladoodu sahal waxayna furimaha dagaalka uga cararayaan gaadiidkooda iyagoo habqanana waxay gudaha u galayaan gobolka Tigray. Dowladda Abiy Ahmed ayaa waxay sheegtay inaysan wax wada hadal la galaynin kooxda haddii aysan joojin sida ay sheegtay dowladdu dhaqdhaqaaqyada military ee ay waday tan iyo sanadkii 2020 oo dagaalka Itoobiya ka qarxay halkaas. Waxaa la soo warinayaa in dowladdaasi waddankaasi Eritrea ee xuduudda la leh waddanka Itoobiya ay sidoo kale la sheegay inay faragelin ku sameeyday gobolka Tigray waxaana dagaal ba'an uu shalay ka dhacay xadka dowladda Itoobiya ee la wadaagto gobolka Tigray. Waxaana la sheegay in kooxda TPLF halkaas laga qabsaday islamarkaana ay kaga carareen hub iyo rasaas iyo meydad badan. Sidoo kale dowladda Eritrea waxay weli beeninaysaa inay dagaalkaasi ku lug leedahay walow muuqaalo xagga satellite-ka ay muujinayaan TPLF oo dagaalka lagu soo qaadayo iyo iyagoo difaac ku jira walow arrintaasi ay xulafaysiga saddexda dowladeed ee Soomaaliya ay isku sii u arkaan. Haddaba Abiy Ahmed haddii uu sii wado culayska uu ku hayo TPLF ayaa waxay noqonaysaa in dowladda Itoobiya ay dib u soo ceshanayso dhulkii laga qabsaday islamarkaana si weyn u maamulayso hadda deegaanada kale ee sida Canfarta, Amxaarada iyo Tigray oo la sheegay inay gebi ahaanba qayb weyn ka qabsadeen oo ay meelo yar ku soo hareen
waa haddii ay dowladda Turkigu ay sii wado duqeymaha xagga cirka iyo dadaalada ay wado dowladda Itoobiya si ay deegaanadaasi mar kale gacanteeda u soo galaan. Abiy Ahmed ayaa ugu baaqay dowladaha reer galbeedka inaysan xal ka raadin meel uusan xal ku jirin, isla markaana ay tahay in dowladda reer galbeedku ay la fariistaan dowladda Itoobiya si xal waara loogu helo xaaladda gobolkaasi Tigreega oo sii cakirmaysa. Sanadka 2020 ayaa muuqda inuu la dhashay iyadoo dagaalka Itoobiya uu sii sanad jirsaday dhowr sanana oo halkaa ka holcayo. Duqeymaha iyo diyaaradaha Itoobiya ayaa weli garaacaya gobolka Tigray maalmihii lasoo dhaafay markii ay TPLF ay sheegtay inay iskaga baxday halkaas kadib markii la sheegay in xagga hawada uu culays badan kasoo wajahay, dowladuna ay ciidamo ku daabushay furimaha dagaalka. Walow kooxda TPLF la leeyahay hab diblomaasiyad ay hadda wax ku raadinayaan, maadaama midaasi aysan muuqana waxaa lasoo warinayaa in dowladda Itoobiya ay hadda ka guuleysanayso kooxda TPLF. Walow aysan jirin wax waanwaan ah, dowladaha reer galbeedka ayaa wada in dowladda Masar iyo dowladaha kale dariska dalka Itoobiya lagala wada hadlo xaaladaasi gobolka Tigray ka taagan oo ilaa ay hadda loo caal waayay. Dowladda Itoobiya ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay geysteen xasuuq ba'an, isla markaana ay dadka leynayaan shacabka ah, walow aan ilaa hadda arrintaasi wax xaqiijina loo haynin. Waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka inaad sheer tiraahdi la wadaagto saaxiibada si ay noogu soo xirmaan saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. Tigray ayaa ilaa hadda dagaalka lagula jiraa, marka waxaan kaa codsanaynaa walaal inaad muuqaalka noo sheer garayso lana wadaagto saaxiibada. Ha naga hakran inaad noo sheer garayso please.